bal ka waran haddii aad gasho dagaal aan waxba la iskula hadhin ii ku daatay boqolaal askarna ay ku nafweyday kumanaan ciidan ahna isaga hor yimid balse ay dhammaantood sabab u ahayd baaldi. Hadda waa baaldi oo qura baaldi oo keliya kan lagu soo dhaansado biyaha ceelka. waan ogahay inaad la yaaban tahay in shuf lasaga dhigay baaldi oo qura weliba baaldigaas oo la haday dagaalkii baaldigii la haday. sheekadu waxay ka soo unkatay qarnigii 14aad waxaana ka dhacday dalka Talyaaniga. labadii magaalo ee isku dhacayna waa Bologna iyo Modena. labadooduba waxay ahaayeen magaalooyin waaweyn oo hodan ah, laakiin midba midka kale wuxuu u arkay inuu ka awood badan yahay kan kale. awood ayaa la isugu faanayay. Bologna waxay ahayd magaalo diineed taageersan baadariga Roma, waxaana lagu naanaysi jiray Gualfis. Modena iyana waxay ahayd dhinaca boqortooyada Roomaanka oo iyaguna la oran jiray Ghibellines. markaad maqasho magacyadaas culculus waxaad odhanaysaa dagaal kuwaa mid diin ama siyaasad ku salaysan amase arrimo waaweyn, laakiin maya, wax walba waxay ku soo urureen baaldi la haday. dabcan dagaalka ugu weyn ee dhex maray labadaasi magaalo waxa uu ku soo ilaaday baaldi la haday. haddii aynu dib isugu noqono dhexdeena, ma jiraa dagaal ayaa af ku dhexleh Soomaalida dhexdeeda. bal u fiirso sida ay sheekadu u socoto. Bologna waxay muddo dheer la dagaalamaysay Modena sababtoo ahi waxay isku hayeen dhul ku yaala xadka beeraha, ceelasha iyo qalcadaha. waxaa xusid mudan in Modena ay qabsatay qalcaddii Montefeltro, taas oo ahayd meel istiraatiiji ah. sanadku waa 1324. Bologna iyo Modena waxay muddo dheer isku hayeen dhul, ceelal iyo xuduud ayaa la isku qabtay. dagaalo yaryar oo joogto oo u dhexeeyay, laakiin maalintaasi Modena waxay qaaday tallaabo xadgudub ah. waxay soo galeen magaalada Bologna waxayna ka hadeen baaldi. haddaba dagaalkani waxa uu qayb ka ahaa colaadii siyaasadeed ee waqti dheer soo jiitamayay. in ka badan 300 oo sano ee u dhaxaysay labada garab ee waaweyn ee Talyaaniga, kuwa taageersan baadariga ee Pope ee loo yaqaanay Gualfis iyo kuwa taageersan boqorka Roomaanka Holy Roman Empire. haddaba saaxiibayaal, kala duwanaanshaha siyaasadeed iyo diineed ayaa saldhig u noqotay murano dhuleed iyo awood sheegasho soo jiitamaya qarniyo badan. Bologna way xanaaqday oo way cadhootay. ciidankeedii ayaa la diray 32,000 oo askari oo ku qalabeysan fardo, fallaadh iyo leebkii iyo seefaha waaweyn ee Talyaaniga caanka ku ahaa xilligaas ayay ku soo dagaal tageen, halka Modena ay la soo shirtageen 7,000 oo askari oo aad u tababaran. markaas ayuu bilaabmay dagaalkii ugu cajiibsanaa ee taariikhda Yurub, dagaalkii baaldigii la haday. maalin dhan ayuu dagaalku soconayay, digtaasna la iska saaray, halkaasna dhiig badan uu ku qubtay. balse ciidankii Modena ayaa halkaas kala hoyday guusha dagaalkaas. inkastoo ay ciidankoodu yaraa, haddana seefta ayay ku hubsadeen dhigoodii Bologna, waxayna si faal leh ula laabteen magaaladaas iyagoo baaldigii gacanta ku haya. baaldigu gacan weeye. hadda saaxiibadaha baaldigii ay hadeen way kaysadeen, malaha madxafka ayay dhigteene weli baaldiga ilaa hadda waa uu jiraa, waxaana lagu soo bandhigaa katedraalka Modena oo weli ku yaala gudaha Talyaaniga. waa astaan guuleed mar haddii ay baaldi gacan ku soo dhigeen dagaal intaasoo qof ay ku riiqmeen, natiijadoodu ay ka dhalatay baaldigaasi soo la yaab ma aha. markaad maqasho sheekadan waxaad isweydiinaysaa, war dadkaasi maxay ula dhinteen baaldi oo keliya oo ay maaragtay ugu dagaalameen? laakiin dhab ahaantii dagaalkaasi wuxuu astaan u ahaa kibir, awood sheegasho iyo wax aanan qiimo lahayn oo lagu lumin karo naf iyo maal. sidoo kale haddii aan dib u eegno waan u milicsano bulshadeena Soomaaliyeed, dagaal la mid ah tan ma aynan lahayn miya ama dagaal u soo dhow? su'aal isweydiin mudan. mararka qaar hal eray, hal ceel, hal awr ama xitaa hal erey careysi ah ayaa sababa colaad weyn. taasi waa sababta loo yiri mararka qaar dagaalka ugu weyn wuxuu ka dhashaa sababta ugu yar.